السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa mawaadiic dhowr ah oo aanu la baxay faylashay qarsoona kuwaasi oo aan daaha kaga qaadi doono mawaadiic fara badan oo la xidhiidha taariikhdii Soomaalida gaar ahaan dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya iyo hadba wixii mawaadiic kale ah ee la xidhiidha guud ahaan xogaha muhiimka ah ee qarsoona ee u baahan waqtigan in daaha laga fiido. qaybahan hore waxaynu ku eegi doonaa maxaabiistii dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1977 dhex baray. waa xusuus qorka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya saxafi hore Yuusuf Garaad Cumar Axmed waxaanu ku bilaabayaa sida tan. Soomaaliya iyo Itoobiya waxa dhex maray dagaal qadhaadh oo bilowday sanadkii 1977 waxa ay ahayd xilligii dunida uu ka jiray dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay midowga Sofiyeeti iyo xulufadiisa oo dhinac ah iyo reer galbeedka uu hogaaminayay Mareykanku oo dhinaca kale ah. inkasta oo markii dagaalku uu bilaabanayay u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ay labada dhinacba gacan saar la lahaayeen iskuna haleynayeen midowga Sofiyeeti, haddana Itoobiya waxa uga horreeyay Mareykanka oo muddo dheer tababarayay ciidankeeda sidoo kalena hubeynayay. isbeddelka dhacay Itoobiya sanadkii 1974 ayaa soo afjaray arrintaasi oo Itoobiya waxa ay ku biirtay xulafada midowga Sofiyeeti. dagaalkii 1977 oo ahaa mid aad u kulul waxaa Soomaaliya ciidankeedu xoog ku galay dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya iyo weliba deegaamo kale oo aan hadda ka tirsanayn gobolka. ciidanka Itoobiya oo kaashanaya hub culus oo Sofiyeetku ku soo daadgureeyay iyo ciidan xoogiisu ka yimid dalalka Kuuba iyo Yamanta Koonfureed ayaa dhimay xawaaraha uu ku socday ciidanka Soomaaliya. ugu dambeyn midowga Sofiyeeti ayaa amar ku bixiyay ficil ahaan xaqiijiyay oo dib ugu soo celiyay ciidanka Soomaaliya soodintooda. Sofiyeetku inkasta oo uu ciidankiisa keenay goobta dagaalka, haddana isagu toos ulama dagaalamin ciidanka Soomaaliya. dagaalkaas waa lagu hoobtay labada dhinacba. Soomaaliya ciidankeedu wuxuu ku soo laabtay soodinta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. sida ciwaanka taxanaha ka muuqata, ujeedada qormadaydu ma aha in aan kaga hadlo ayuu yidhi Yuusuf Garaad Cumar Axmed taariikhda dagaalkii 1977 faahfaahintiisa iyo lafagurkiisa toona. waxay qormadaydu ku koobnaan doontaa maxaabiistii dagaalka. weliba waxaan ka hadli doonaa kaalinta aan anigu shakhsiyan ka qaatay 10 sano kadib markii uu dagaalku dhammaaday 77 maxaabiis iyo maqanayaal. ciidanka Soomaaliya waxa uu la soo noqday dhowr kun oo maxbuus oo Ethiopian ah oo uu gacanta ku dhigay intii dagaalku socday. waxa uu heliyay hal duuliye oo Kuuba u dhashay oo isagana ay soo qabteen kadib markii ay soo rideen diyaaradiisii uu watay ee dagaalka. waxay isugu jireen military iyo shacab sida ay ku doodeen, laakiin ciidanka Soomaaliya midkii aan soo laaban waxaa loogu talagalay in uu dhintay. inkasta oo ay ciidanka Soomaaliya maxbuus ahaan u soo qabteen dhowr kun oo Ethiopian ah, haddana marnaba talada laguma darin in uu jiro askari Soomaaliyeed oo gacanta u galay ciidamada Itoobiya in nolol lagu hayn doono oo xabsi la geyn doono. cadaawadda labada dal u dhaxaysay iyo Itoobiya waxay maraysay meel xun. Itoobiya waxay u arkaysay in Soomaalidu ay gardarro ugu soo duushay dalkeeda, dhimasho aad u badan, dhaawac ka sii tiro badan iyo burbur weynna ay u geysteen. sababahaas iyo qaar kale dartood Soomaalidu waxay iska dhaadhicisay in aan Itoobiya xabsi dhigi doonin haddiiba ay askari Soomaaliyeed dagaalka ku qabato ee ay hore ka dili doonaan. qofkii aan ka soo noqon waxaa loogu talagalay in uu dhintay. ragga qaar waa la dhaxlay, xaasaskoodana waa la guursaday, carruurtoodii agoon ahaan ayaa loogu talagalay loona koriyey. waxaa markiiba muhiim noqday xeerar caalami ah oo xilliyadaas oo kale la miciinsado. waa axdiga Jeneefa oo xilliyada dagaalka la adeegsado. nasiib wanaag waxay labada dowladoodba ay ka mid yihiin dowladaha saxeexay axdiga Jeneefa ee soo baxay 1949 oo ah xeerarka caalamiga ah ee xilliyada dagaalka ay tahay in loo hoggaansamo. axdiga Jeneef ee 1949 axdigan Geneva wuxuu soo baxay sanadkii 1949. Soomaaliya waxay saxeexday 2 July sanadkii 1962. waa 2 sano kadib markii ay xorriyadda qaadatay. Itoobiya waxay iyadu xubin ka noqotay 2 Oktoobar 1969. xeerarkaas oo ka kooban 4 xeer oo waaweyn mid ka mid ah oo ah xeerka saddexaad ayaa qeexaya dowladaha heshiiska saxeexay sida ay tahay in ay ula dhaqmaan haddii ay qof dagaal ku qabtaan oo ay maxbuus ahaan u kaxaystaan. waxaa ka mid ah qofka isaga oo hubaysan oo dagaalamaya la qabtay, kan dagaalamayay laakiin markaas aan dagaalka qayb ka ahayn ama aan ka qayb qaadan karin, sida kan isdhiibay, kan dhaawaca ah iyo kan bukaanka ah intaba. xuquuqda maxaabiista uu siinaya axdiga Jeneef oo ah kuwa badan haddana si waafi ah u qeexan ayaa waxaa ka mid ah in maxbuusku uu akhbaartiisa u diri karo qoyskiisa iyo in ay tahay in qoyskiisu akhbaarta ay u soo diraan la soo gaadhsiiyo iyadoo dabcan loo marayo dariiq daalacan oo uu heshiisku qeexayo. Siyaad Barre iyo Mengistu Hayle Mariam labada hogaamiye ee Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Siyaad Barre
iyo Ethiopia gaashaanle dhexe Mengistu Haile Mariam oo ahaa niman ay iyaga taladu gacantooda ugu jirto waxay ogolaadeen in ay u hoggaansamaan heshiiska Geneva ee dalalkoodu ay qaybta ka yihiin. taas macnaheedu ma aha in dhammaantiis sida uu yahay loogu hoggaansamay oo aan innaba lagu xadgudbin. Guddida caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas oo magaciisa loo soo gaabiyo ICRC waa hay'ad ay hawsheeda ugu weyn tahay in ay dhowrto nolosha iyo sharafta dhibanayaasha dagaalka iyada oo u maraysa sharciyad caalami ah oo uu ka mid yahay axdiga Geneva. waxay bilowday inay diiwaan geliso maxaabiista labada dhinac ay kala hayaan. waxa kale oo ay maxbuus kasta ka soo qaaday waraaq uu u dirayo oo qoyskiisa ama ehelkiisa oo uu ku wargelinayo in uu nool yahay, in uu xidhan yahay iyo caafimaadkiisaba. Soomaaliya waxay maxaabiista Itoobiyaanka ah ku haysay xabsiyo ay ka mid yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho, xabsiga Dhanaane iyo xabsiga Laanta Buuro. labada dawladood mid kastaaba goonidiisa ayuu isaga hubinayay waraaqaha ay maxaabiista iyo qoysaskoodu isu dirayaan oo ay Laanqeyrta Cas u kala gudbinayso in ay yihiin kuwa ku kooban akhbaarta qoyska oo kaliya. waraaquhu waxay ahaayeen kuwa furan oo aan bushqad ku jirin. marka ay dawlad waliba ay waraaqaha mid u akhrido oo ay iska hubiso in aan sir iyo macluumaad kale midkoodna ku qornayn waraaqda ayay shaabadaynaysay kadibna ay u gudbinaysay Laanqeyrta Cas. warqadda waxa ku qoran magaca maxbuuska, magaalada uu ku dhashay iyo sanadka iyo hooyadii magaceeda. maxaabiistu maadaama ay sanado badan xabsi ku jireen, marka loo ogolaanayo in ay waraaq u qoraan qoysaskooda waxaa adkaatay in dadka ay waraaqaha u soo qoreen laga helo meelaha ay ciwaan ahaan ugu soo hagaajiyeen ama uga soo dhigeen. qaarkood magaalo ayay ku soo qoreen. laga yaabo in qofka ay u soo qoreen uu dhintay ama magaalada uu shaqo u joogay lagana bedelay oo uu ka guuray muddo hore. dawladdii berigaa jirtay ma ogolayn in magac qabiil laga qoro maxbuuska Soomaaliga ah ee ku xidhan Itoobiya. dawladdu waxa kale oo ay diidanayd in warbaahinta laga sheego magacyada maxaabiista Soomaalida ah ee ku xidhan gudaha ama jeelasha dalka Itoobiya, amaba meel fagaara ah laga sheego ama lagu soo dejiyo magacyadooda. waxay doonaysay dawladda Soomaaliya in maxbuus kasta qoyskiisa si yar oo hoose loo wargeliyo in uu nool yahay kuna jiro xabsi ku yaala gudaha dalka Itoobiya. waxaa intaa dheer in aan qoyska waraaqda loo soo qoray uu fahamkoodu yahay in wiilkoodii, walaalkood ama aabahood mid uu yahayba uu dhintay sanadkii 1977. sidaas darteedna uma qabaan in uu nool yahay oo baadigoob kuma jiraanba, maadaama ay qoysaskii Soomaaliyeed ee ay askartu ka maqnaayeen u haysatay mar haddii Itoobiyaanku ay qabteen in aanay nolol adduunyada guudkiisa ku joogin. hawsha maxaabiista Soomaalida ee ku xidhnaa Itoobiya oo aan si toos ah uga qayb qaatay 10 sano kadib qabashadoodii, khibradda aan ka kasbaday ayuu yidhi Yuusuf Garaad Cumar Axmed oo ay ka mid ahayd wixii hay-adaha amnigana dhex maray. waxa aan kala kulmay qoysaska maxaabiista ee aan warka farxadda leh u geeyey dareenkoodii sida uu noqday, iyo ugu dambayn mar kasta oo aan soo xasuusto howlgalkaas samafal ee sharafta lahaa sida uu dareenkaygu noqdo, waxaan insha Allah kugula wadaagi doonaa qormooyin aan baaritaan ku soo bandhigi doono mustaqbalka dhow haddii Alla idmo. saaxiibayaal, qaybtan koobaad ee ku saabsanaa maxaabiistii dagaalkii 1977 intaas haynoo joogo. la soco insha Allah berri iyo qaybta labaad. waa xusuus qorka wariyihii hore ee weynaa ahaana wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.